gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo iska casilaya xilka gudoomiyenimo markana gudbiyay fariintiisa ku aadan inuu xilka ka tagayo xildhibaanada golaha guurtida oo u qaybsamay laba garab oo kala aragtiya xukuumadda Somaliland oo ka laabatay go'aankii ay hore u gaadhay cashuurta dulsaarka ee la duldhigay shacabka iyo ganacsatada muddo hal bil ku soo dhow daawashada muuqaalka dhameystiran qodobadan ayaynu ku soo qaadan doonaa gudoomiyihii golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan 92 jir muddo dheer u soo shaqeeyay qaranka Somaliland xilal kala duwan soo qabtay ugu dambeynna muddo dheer hadda ahaa gudoomiyaha golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland Salebaan Maxamuud Aadan waxa uu sheegay inuu doonayo guud ahaan xilka iyo waliba mas'uuliyadda inuu iskaga tago fariintiisa ku aadan banaynta kursigana waxa uu gudbiyay mudanayaasha ay qusayso ee golaha guurtida isagoo sheegay inay u diyaar garoobaan bedelkiisa iyo cidda ay xilligan doonayaan isaga inay bedesho ee ay markan dooranayaan waxaana u kala qaybsameen xildhibaanadu sida xoguhu tibaaxayaan xilligan laba qaybood qayb ku cadaadinaysa Salebaan inuu sii joogo positionka iyo qayb kale oo iyagu markan kale riixanaysa shakhsi ahaan cidda fuulaysa kursigaas haddaba qaybta ku cadaadinaysa Salebaan Maxamuud Aadan kursiga inuu sii joogo ayaa dhaqdhaqaaq bilaabay gelinkii dambe ee maanta kadib markii uu soo baxay warka gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan oo markan isagu go'aansaday inuu si iskaga fadhiisto oo uu ka tago shaqada gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan waxa uu go'aansaday inuu xilkan baneeyo ka hor inta aanay dhammaanba muddo xileedka golaha guurtida oo markan ku soo dhow dhamaad kadib markii sanadkii 2021 muddo kororsi 5 sano ay heleen xilligaana ay u kordhiyeen xukuumadii hore 2 sano markan 5 sano oo ku dhawaad dhamaad iyo Salebaan Maxamuud Aadan iscasilaadiisa ayaa isku soo beegmay walow ay muuqato inaanay jirin rajo lagu bedeliyo golaha guurtida ee jira oo markan aan doorashadooda loo kaba ilaninba maadaama doorashooyinkii kale ee dalka sida wakiiladii iyo deegaankii dib loo dhigay xaalado markan isa saaran oo la sheegay inaan golaha markan qabanaya doorashooyinku aanay suuragal ahayn inay hirgeliyaan guurtidu waa hawl kale waxaanay u muuqataa mid aan caqabadeeda sida looga gudbi karin iscasilaada iyo dalabka Salebaan Maxamuud Aadan iyo diidmada qayb ka mid ah saaxiibadiisa yaalka kula ah golaha guurtida oo arka hogaamintiisu inay tahay tii ugu haboonayd maadaama muddo dheer ku soo hogaaminayay xukun bira iyo sida oo kale inuu uga soo dhiciyay xukuumado kala duwan muddo kordhin geeskoodana oo ahayd cimri dheeraysi sida oo kalena oo ahayd fursado ay kursiga ku sii joogeen intii loo doortay in ka badan geeska kalena hogaamintiisa ay u arkaan ta ugu haboon shakhsiyaadka ku jira golaha guurtida ee xilligan iyo ka ugu macquulsan haddana Salebaan waxa ka daba timid daada iyo cimriga sida uu isaguba hore u sheegay dhawaan waraysi uu bixiyay waxa uu sheegay dhawaan isagu inuu sheegi doono xilliga uu tagayo balse dadku aanay weydiinin xilliga uu cayiman ama se goorta uu cayiman waxa uu sheegay dhawaan isagu inuu go'aansan doono amba bixiisa iyo inuu ka bixi doono dariiqa iyo jidkaas balse waqtigaas laga dhul sugo oo aan markan la kidkidin ugu dambeysay maanta ayay timid go'aankii gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Salebaan Nuur waxaan dib u dhignay ilaa ay inta laga gaariyo kooda bisha 8aad 2026 in wixii farsamo ah si wada jir looga shaqeeyo haddaba iyada oo halka arintu ay meel wacan noo marayso waxaan ogaanay inay magaaladii iyo warkii suuqa galay uu yahay kanana ku wada hadalay iyo kanaan wadnay wax ka gedisan oo xumaantashiil kale iyo dad wax kala wadwadaa ay dadkii shacbiga ama ganacsatadii suuqa ee kala hooseysay war aan sax ahayn la gaarsiiyay arrinka loo fahmo reedaanka la iska naro wixii suuqa soo galay been bay hayde yaan lagu hawlgelin waxay halkan ugu yimaadeen wasaaradda maaliyadda kala kulmeen wixii suuqa la geliyay iyo arrintii warxmatashiilka ee dadka danaha gaarka la geliyeen mid ka duwan waana ka duwantay waxaan markaan la kulannay wasaaraddii waxa laynaga doonayay iyo waxa suuqa galay aad iyo aad bay kala duwan yihiin wasaaradda maaliyadda waxaa ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen ganacsato fara badan falanqayn iyo dood dheer oo dhinac walba wax la iska tusay
waxaanu isla garanay in cashuurtii GST-ga halkii ay markii hore taagnayd ay in badan hoos uga soo degtay siday ku saxmisayna la isla qaatay. haddaba iyada oo halkaa arrintu ay meel wacan noo marayso waxaanu ogaanay inay magaaladii iyo warkii suuqa galay uu yahay kanaanu ku wada hadalnay iyo kanaanu wadnay wax ka gedisan oo xumaantashiil kale iyo dad wax kala wadwadaa ay dadkii shacbiga ama ganacsatadii suuqa ee kala hooseysay war aan sax ahayn la gaadhsiiyey si aanu islo saxno oo waxaa rasmiga ee la go-aansaday dadkii loo gaadhsiiyo xukuumaddeena sharafta leh waxaanu ka codsannay inay dib noogu dhigto hawshii GST-ga ay fulin lahayd bisha 11 Sabtida muddadaas oo aynu u dhiganay ilaa 1 August si aanu isula qaadanno iyadoo qof waliba wixii meesha ku jirayna fahmay la isuna taabsiiyey guddi hoosaadadii ganacsatadana aanu warkaa gaadhsiino. waxaanu mar labaad aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa inay nala qaadatay muddada aanu dib u dhignay ee dadka iyaga aanu isqancinayno ayaanu mar labaad uga mahadnaqaynaa aad iyo aad. xukuumadana waa tii shacbigeeda u dhaganuglaata aad bay u mahadsan yihiin. warka suuqa gale ee ku saabsanaa lacagta GST-ga laga doonayo ganacsatada si qaldan buu u galay waana ka duwantahay waxaanu markaanu la kulannay wasaaraddii gudiyaasha kala duwani baamushtariga arrinkan quseeyo si ay u wada fahmaan arrinkaa oo ay nooga wada shiro ilaa bisha 8aad koodeeda dub loo dhigay si wixii suuqa galay beentaha uu meesha uga baxo oo isula wada fahmno suuqa baalkii waaheen iyo hadilbadkeeya kaain gobonnimo iyo gobolladu si warka loo wada gaadhsiiyo runta la isku sheego wixii sida yihiin loo wada fahmo ayaanu isla qaadanay waanaanu isla fahmnay cid walbana arinku sidaya waynu ka wada shiraynaa waynu isla wada qancinaynaa waynu isla wada arkaynaa dowladduna waa inoo diyaar sida arrinkaa loo fahmo shaydaanka layska naro wixii suuqa soo galay been bay ahayde yaan lagu hawlgeli. arrintii aanu halkan ku nimaan ku soo dagaal tagnayna dowladda ugu nimaanu sidanay waxa ka gedisan baanu ugu nimi wax ka fudud baanu ugu nimi sidaa awadeed waxaan dee fikir hadalkoodaasi baan xoojinayaayo ganacsatoy way soo imanaynaa haddii allahu yidhaahdo guddiyadii aynu ahayn inaynu isku qaybsanayn baan iskugu imanaynaa warkii halkana loogu sheegay ee dee dabeecsanaaya kii hore ee laynoo keenay aan ahayn waa idinla imanaynaa haddii allahu yidhaahdo xukuumaddana waxaanu ka codsannay iyadoo dee mar horena dib u dhigtay inay mar labaadna dib noogu dhigto oo ilaa 1 bisha muxuu ahaa arrintaa aan la fulin way naga aqbaleen waana mahadsan yihiin sidaa guddoomiyuhu sheegayna dee xukuumaddu waa tii dadkeeda dhegaysata karaamuunba idinku kordhaysa iyo muxuu ahaa dadkiinoo kalsoonidii idinku qabeen sii badato inba idinku kordhaysa. annagoo tixgelinayna talooyinkii ay soo jeediyeen guddidu isla markaana dareensan wax kasta oo caqabad ku noqonaya hirgelinta cashuurta iibka iyo badeecadda ee la sal ballaarinayo. cashuurtan hore u jirtay waa la sal ballaarinayaa taa darteed isla markaana ay dowladdu ay mar walba u dhimirsan tahay isla markaana ay tixgeliso inay tala wadaag la yeelato shacbigeeda iyo cid kasta oo arrin kasta iyo tallaabo kasta ay qaadayso ay khusayso. waxaanu sidaa ay sheegeen guddoomiyaha iyo maxamed shukri iyo maxamuud qaalib waxay halkan ugu yimaadeen wasaaradda maaliyadda kala kulmeen wixii suuqa la geliyey iyo arrintii warxumo tashiilka ee dadka danaha gaarka la geliyeen mid ka duwan
waynala qaateen taasi waxay keentay inaanu qasab ay noqoto inaanu helo waqti dib loo dhigo oo arrintaa lagaga shaqeeyo ganacsatadu waa ganacsatadii cashuur bixiyaasha ahayd soo dejiyaasha ahayd iibiyaasha ahayd waxay dadkii dalka soo dhisay hadday noqoto kuwii ugu horreeyey in maalintii maxamed xaaji ibraahim ciyaalo madaxweynaha dalka ka noqday ee dalka dib loo heleelayay ganacsatay ahayd kuwii bixiya lacagta in lasoo taabaco ganacsatay ahayd dhaqaaqii koowaad ee dowladnimada ganacsatadu maaha cid ka soo horjeeda dowladnimada iyo qarannimada ee waa kuwa dhisaya ee qarannimada ka shaqeynaya ee dowladnimada ka shaqeynaya sidaa daraaddeed mar walba waxaanu anagu ku shaqeynaa dareenka shacbiga guud ahaan jamhuuriyadda somalilan dareenkiisa iyo ganacsatada waxaanu markaa qaadanay oonu ka qaabalnay ganacsatada in muddo aanu dib u dhigno waxaanu dib u dhignay ilaa iyo inta laga gaadhayo 1 bisha 8 2026 in wixii farsamo ah si wada jir looga shaqeeyo ay markaana si wada jira ay ku fisho waanu la qaadanay sida ayaanay arrintu ku dhamaatay